السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت وناكسن ميل كستو aad joogtaan iyo xilli kastoo ay idin tahay waxaad ku soo dhawaataan casharadii imtixaanaha ahaa ee koorsadii bilowga ahayd. Maanta waxaynu qaadanaynaa lesson 11 casharka 11aad ayaynu qaadanaynaa. Koorsadeenuna waa level 1 ama heerka koowaad. Maanta waxaynu ku qaadanaynaa casharkeena waxa la yiraahdo members of the family and relatives. Waxaynu ku qaadanaynaa xubnaha qoyska iyo qaraabada ayaynu ku qaadanaynaa casharkeena ku soo dhawaada mar kale. Members of the family and relatives. Members waa xubnaha of the family ee qoyska and relatives iyo qaraabada. Members waa xubno of the family ee qoyska and relatives iyo qaraabada. qaybaha ama xubnaha ay ka kooban yihiin qoyska iyo sidoo kale qaraabada ayaynu ku arki doonaa casharkeena oo aynu ku qaadanaynaa sida ciwaankaba idinkaga muuqata. Halka midigta waxaa inoogu qornaan doona Ingiriiska ayaa inoogu qornaan doona, halkaas hortiisana Soomaaliga ayaa kugu qoran, waan isla akhrinaynaa. Father aabe, father waa maxay? Aabe. Mother hooyo, mother hooyo. Parents waalid. Parents waalid. Haddii estas laga reebo oo la yiraahdo parent waa hal waalid. Aabe ama hooyo. Haddii parents la yiraahdana waa waalid, waa labada waalid. Brother walaal. Brother walaal waa walaalka oo wiilka. Sister walaal. Sister walaal waa gabadha oo walaasha ayaa la yiraahdaa sister gabadha. Sister walaal. Son waa wiil. Son wiil. Daughter. Artaas British markii la joogo waa la qariyaa, laakiin Americanka markii la joogo waa la muujiyaa. Marka anagu systemkan ku soconaa waxa uu yahay waa British. Marka inta badan aarta hadii aad aragto anagoo meelaha qaar ku dhawaaqaynin waa sidaas. Daughter waa gabar. Daughter waa maxay? gabar. Siblings walaalo. Siblings walaalo. Children waa caruur. Children caruur. Child haddii la yiraahdana waa hal cunug. Child. Auntie eedo. Auntie eedo. Uncle adeer. Uncle adeer. Niece. Niece waa gabadha abtiga ama adeerka loo yahay. Niece. Nephew waa wiilka abtiga ama adeerka loo yahay. Grandfather. Awoowe. Grandfather awoowe. Grandfather awoowe. Grandmother ayeeyo. Grandmother ayeeyo. Relative qaraabo. Relative qaraabo, hal qof oo qaraaba. Marka esta lagu daro saan ay taana waa relatives, waa qaraabo, waa dhowr qof oo qaraabo ah. Aan ku celino. Father aabe. Father aabe. Mother hooyo. Mother hooyo. Parents waalid. Parents waalid. Brother walaal. Brother ama brother walaal. Sister walaal gabadha. Sister walaal. Son wiil. Daughter gabar. Daughter ama daughter
gabar. Okay, siblings walaalo, dadka wada dhashay walaalaha. Siblings walaalo. Okay, children caruur. Children caruur. Child cunug. Child cunug. Okay, auntie eedo ama habaryar. Auntie eedo ama habaryar. Okay, auntie isku sii u yaqaanaa Ingiriisku. Eedo ama habaryar. Auntie eedo ama habaryar. Uncle adeer ama abti. Uncle adeer ama abti. Okay, niece waa gabadha abtiga ama adeerka loo yahay. Gabar weeye laakiin waa gabadha abtiga ama adeerka loo yahay. Okay, nephew wiilka abtiga ama adeerka loo yahay. Waa wiilka abtiga ama adeerka loo yahay. Okay, grandfather awoowe. Grandfather awoowe. Grandmother ayeeyo. Grandmother ayeeyo. Relative qaraabo waa hal qof. Haddii s lagu daro oo la yiraahdo relativesna waa qaraabo. casharkeena oo maanta koobnaa laakiin aad iyo aad muhiim u ahaa oo aad ku baratay xubno badan oo ka tirsan qoyska iyo qaraabada. Intaas ayuu inoogu ekaan doonaa. waa inoo casharka soo socda iyo waa inoo xiisada soo socota iyo cashar kale oo hor leh. inta ka horeysa, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.